السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام أنت مالك استأدون كتشوكتين ولا لهيك مسلمين تأه إن محايدي رجينا يا عافماد يا عمر دير يا عافماد قب إن وحربا ما أنتين هكهالو ورنتي مدو هدا ما عرفتي قف كستو هادلبا وكهادلا هاد وقت قال لك جوجو وحواي إن ما عرفتي إن dumarka kale inta maqlaan ciyaalkooda iyo reerkooda qixinaya maaragtay oo intay dhageystaan oo loo sheekeeyo ama ha laga caqli badiyo ama yaan laga caqli badan ama duruuftooda iyada sida ha timaado oo ha u noqoto qofka u imaanaya inuu yahay ama qofka ka dalbanaya inuu kaxeeyo inuu yahay doob najaa ay carabtu dhahaan cambuurkii badbaadinta oo noqonaya maaragtay inuu qof rabo in la caawiyo u yahay oo asaguba meel alaali meel uu wax ka qabta la'aa marka dadkaasana waxa ka faa'iideysanaya dad kale oo ku dhex jira gabar maskiin ah oo Afrika ku xirmatay oo meel u baxda la ninkina uu yiri ciyaalkii khalaas meesha haday nagu koreen quraanka noo barnaan maxaa ka doonay North America yes Soomaaliya iyo dalka muslimiinta ay dalka carabta ay kulligood ilaahu noo nimceeyay waxa gabadha meeshaas ku nool shaqaale u jooga guri fiican ay ku nooshahay nolol fiican ay ku nooshahay dadkeedii ehelkeedii adaankeedii ku dhex jirtaa oo nimco ka fiican ma jirto laakiin dumarka sometimes way iska stress iska noqonayaan waxay rabaa inay iskaga noqdaan dalkii ay ka imaadeen North America noloshoodii u xiisaayaan marka qofkii 4 sano 5 sano 6 sano 7 sano dalkii ka maqnaa North America markuu soo noqdo bil ama 2 bilood joogo wuxuu dhaaya igu celi meesheedii ya laakiin wuu wuxuu xiisaaya xoogaa maaragtay noloshii different ahayd u xiisaaya marka gabdhahaas hadii lagu cadaadiyo meesha ya oo la yiraahdo ma bixaysiin khalaas sa u timaadeen way oo baasaboorada inta laga qaato la yiraahdo daasid meel u dhaqaaqaysid ma laha haddii qof YouTube ay ku arkaysa intaas oo sheekeynaya oo dhahay dadkan caawiya oo sadaqada aruuriya oo saana sameeya ay arkaysay waxa waay maaragtay waxay dhahaysaa maasha Allah ilaahaba qofkan ku soo diray qofkana ku caawinaya qofkiina marka waa qof asagu ugu talagalay inuu ka faa'iideyso oo system kaleeto wata iyo sheeko kaleeto ma fahanti marka waxa waay ma eegayaan mana oga mana ka warhaayaan qofkan wuxuu yahay iyo wuxuu wata iyo systemku wato iyo maaragtay in meesha hadda hay'ado ay furatay dalkayga Soomaaliyeed iyo dalka Islaamka iyo North America iyo Europe inta la isku xirtay hay'ado dadka ka faa'iideystaba oo maaragtay human trafficking ah oo maaragtay gabdhaha yararka qaar ee hoteelo lagu kireeyo iyo noqday qaar maaragtay jirka laga baxo Soomaaliya waxa waay maadaama ay dal sharci lahayn sharci ay passport ay qofku intuu soo qaato uu ku soo dhoofi karin uu sabanaanadan ku iimaan karin maxaa la sameeynaa marka next step ku wuxuu yahay dalka gudihiisa in laga baxo kaliyaha iyo yaana la hayr garaynaya annagiyaana la hayr garaynaya naaga waxa leel 3 kuna bishi lagu siinaa 5 kuna lagu siinaya meel alaal meesha u dhoofaysidna diyaaradu waa laga bixinaa qoftaas ilaahay kaba baqayso ma eegayso ama ninkaas ragga ma eegaayo warheedhe waxaad maanta ku samaysid qof walaalka oo Soomaali oo dan yar ah ama ilmo yar oo raja ama ilmo yar oo agoon ah oo jidka ka qaadatay ama reer dhanood aad xambaaratay wax allaale waxaad ku samaysid bari inuu kaaga daba imaanayso ma eegayaan waxa soo dhan waxay eegaan adaa moment adduunka inta la joogo iyo lacagta yar ay qaadanayaan bay eegayaan ma garat marka waxa waa gabdhaha masaakiinta ah yaa la dhihin waxa waaye maafiyadan iyaga maaragtay u dalha uma dan lahayn runta hadii la isku sheegayo waxa waa ninku dhahay ma laha aniga naagtayda meeshan ku cadaadiyo ma isa rabin waayahan maaragtay inay maaragtay ay North America ay joogto Soomaaliya ma isa rabin
ayaantaa dhanay ooynayso lahayd ha layga saara meesha ma uu dhahaay ma uu absolutely ma uu kuu sheegay arrintaas abuse-ka iyo waxa waaye iyo controlling-ka iyo all that stuff qof kuu sheegay haba yaraatee ma laha qofku dhahay haba yaraatee saasaan samaynaya ma jirto qof kasta wuxuu ku leeyahay nimcaan ku jirnay jannaan ku jirnay janna haddaa ku jirtay how come ay u ordowsaa how come ay isugu dhiibaysaa maaragtay af libaax weligiin ma u fiirsateen oo ma istirahdeen waay gabdhahan masaakiinta la leeyahay gabdhahan masaakiinta iyada ilmahooda la la'yahay how come ay isugu dhiibeen ama hana ha noqoto ama shaydaan kale ha noqotee how come ee reerkooda iyo gurigooda hadday nimco ku jireenoo barwaaqo ku jireenoo 100% happy ahaayeen say ku dhici kartaa inay isugu dhiibeen shayaadiin ayaga kuwaasoo kale ah dumarkaasoo kale ah ma isweydiiseen waxay isugu dhiibeen there's a reason ninka soo ooynaya Denmark fadhiya waa soo ooynaya wuxuu ku leeyahay Denmark fadhiya dawladda xidaa oo iidid why the hell hadda run sheegaysid ood aabbo fiican tahay oo qof khatar ah tahay way aad ilaa hadda Denmark u fadhisaa ma tagtid oo sida ka kale tood reer maxay ahayd Vancouver ahaaba wuu tago xamar u dhex wareegaya adiga maxaa ku diidayna xamar dhex wareegtid teeda kale kan hadda xamar dhex wareegaya oo maaragtay ciyaalkiisa lagu la'yahay oo reer Canada aha waxa waay wax yar dhowr bilood bay ka maqan yihiin ilmihi kan 9 bilood ay ka maqan yihiin oo Denmark fadhiya Denmark u dhex fadhiyaaba how are you sitting there and ilmahaagii xaaskaaga waa maqan yihiin that means there is something that she was running away for marka runta la isku sheego oo dumarka maaragtay abuse-ka ku jira ama rafaadka ku jira ama silaca ah walaalayaal inta u tagtiin dadka islaamka ah oo runta ah munaafiqiinta inta ka hartiin iyo dadka maaragtay media fadhiya inta iska deysiin walaalayaal waxa sameeyay dadka runta ah oo idin caawinaya u taga oo dadkaas wax idin sameynaya dadkaas u taga oo dadkaas waxa tiraadeen walaalayaal meesha ku rafaadsanahay baasaboorkii wixii waa la iga qaatay warqadihii ilmaha waxaan rabaa inaad caawisiin boqolkiiba 90 afar iyo 5 ma ahane boqolkiiba 10 baa waxa waay dadka maafiyada ku jira social media boqolkiiba 90 ka kaleeto waa dad ma sha Allah ah oo dadka caawiya oo social media ku soo dhigaynin oo video codka ka soo duubaynin oo waxba ku dhahaynin samee ma fahanti on ku dhahaynin maaragtay aan ka duuba social media iyo aan ku geliyo YouTube aan ku geliyo oo halkaas fadeexadaada iyo magacaaga halkaas laga sheego oo adereeskaaga ii sheeg oo cinwaankaaga ii sheeg oo albaabka see ku garanaya I don't get it qof walaalka islaam aad caawinaysid oo rabti inaad caawisid oo ma telefoon cigarette kula hadashid ma tartiib messengerka cod tartiib adiga ku sheekaysatiin way public inta soo dhigta waxa leedahay xageed degan xaafadeen magaceed albaabka noociis waa ganjeelo soo agtahay tuuga inta u tagta dhici karta dumarkaas masaakiinta oo ciyaalka waxa waa aroon garad waxa waa systemka ma fahansan adiga markii lagu leeyahay addresskaaga ii sheeg oo cinwaanka albaabkaaga ii sheeg oo albaabkaaga colorkiisa ii sheeg do you think qofkaas inuu ku caawinayo no qofkaas kuma caawinayo qofkaas fadaayixdaada iyo maaragtay iyo ceebtaadu banaanka soo dhigaya addresskaaga uu banaanka iyo public siinaya waxa waaye dadkan cadaanka ah qof hada addresskiisa sheegtid publicly ugu sheegtid maxay ahayd social media waa lagu xirayaa page kale waa laga xiraa gabigiisaba ma fahanti marka waxa waaye waxaan la yaabanahay dadka aniga maxay ahayd cinwaankooda publicly inta ku qaata hadhow ku dhaa waa ku caawina say ugu caawinay cinwaankayga public ku bixinaysaa dumarkaana abuse ku jira walaalayaal hadda abuse ku jirto oo dhibantihiin dadka qofkii ku dhaha aad tiraad walaalo inay caawisaan raba dhiban ku jira magacaaga u sheegin qof saasa jira dheh haduu ku dhaw waa ku caawinaya sir ahaan ku caawinaa anoona ku soo dhigin YouTube iyo sawir ka qaadin iyo public ku soo dhigin qofkaas la hadal oo walaalo saas isas ay jirta dheh hadda dadka taqaaniin ama Soomaaliya ha noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama Kenya ha noqoto Kenya hadda joogto waa nimca ku jirta because Kenya safaaradii oo dhan fadhiya Ethiopia hadda joogto sidoo kale safaaradii adduunka dhan fadhiya waxa u baahan tahay markaas ma laha ma fahanti hadda Kenya joogtidna oo isleedahay uu ku dilaya ama uu kugu sameeyna ama waxbuu ka qaada baasaboorada wax ka aruursadana
taxi inta qaadata safaaradda geedhe hadday Maraykan tahay hadday Denmark tahay hadday Sweden tahay hadday Canada tahay safaaradda adduunka dhanaa fadhiya haddaa xamar Muqdisho joogtidna diyaarad soo qaado waxaad tiraahdaa safaaraddaas u socdaa qofka dalkaas sharcigaas u dhashay oo leeyahay qof kula hadlay mala Ethiopia haddaa u socotidna Soomaaliya haddaa helayso qof lacag ka bixiyana qof laakiin ha isku dhiibin dadkan harcad inta guriga ka dhex baxa hadhowna lagu balaciyayba codkaagi bala laayahay adii ciyaalkaagi oo ugu tala galay inay jirkaaga iyo kiliyahaaga iyo beerkaaga la baxaan adii ciyaalkaagaba ha tarasta gareynina walaalayaalow qofki dib haysto dadka walaalahay muslimiinta ah qof Allah la qofka isdheeyso qofkaas waa qof sharaf leh mar hadduusan ku soo dhigaynin social media codkaaga iyo taleefankaaga iyo magacaaga iyo maxay ahayd meesha degan tahay iyo addresskaaga iyo live-kaaga oo soo dhigaynin YouTube qofkaas oo kale walaalayaal la xiriira oo qofkaas uu idin caawinaya hadii Ilaahay ku qadaro oo Ilaahay ku calfo oo Ilaahay ma aragtay kugu soo dhiibo inuu ku caawiyo qofkaas uu ku caawinaya waxba ku qabanaya ma fahanteen wixii kala rabina ka hadal maxay ahayd waxa way marka walaalayaal yaal mar hadaa maqashid qof ku dhahaaya mar hadaaba maqashid qof ku dhahaaya social media ma ku soo dhigi karaa maya dheh walaalow ma qof islaamnimo iyo caawinaysa iyo walaaltinimo mise waxa rabtaa inaad shuhrad iyo magac iyo viewers igu raadsatid mar hadaa aragti qof ku dhahayo viewers aan kugu raadsanaya ama social media aan ku soo dhigaya marka social media ku soo dhigo video ka duubo cod ka duubaan ku caawina hadaa maqashid ka carar oo ha maqlin hadalkiisa qofka dib haystana walaalayaalow dumarka kulligeen waa dhibana waa wada qarsanayna runta hadii la isku sheego boqolkiiba 98 dumarku waa rafaadsan yihiin mid ilmihi looga dhaqaaqa mid guriga jooga wax xalaal wuxuu qabanayo faa'iido la haysan jirin mid ma aragtay ilaaha u naxariistay iyada kaligeed rafaadayso inta ilka cadeysa dhahaysa ninkayga ii shaqeeya oo ninkayga wax kasta isiya dhahayso waa la wada rafaadsan yahay marka yaan la ha u malaynay naagta ku soo labista dirac iyo maxay ahayd gogorad ku soo xirato oo dahab xiran ha u malayn inay ka fiican tahay kama fiicna she's faking it until she makes it waxa way adigay ku tusaysaa show off ku sameynaysa inay ka fiican tahay kama fiicna qof ka fiican ma laha shalay adaa ilmahaaga dhalo ku soo rafaaday maanta adaa korsanaa meel ka soo saaray ilmahana Ilaahay noo hadeeyo oo Ilaahay khayr ha nooga dhigo arurteedo oo dhan marka waxa way qof u baahan tahay malaha Ilaahay kaliya u baahan tahay Ilaahay qofku kugu soo diro khayrna khayr buu ku sameynaya sharku gulama aadaay ma fahanti marka laga cararo dumarkaas qofki dhibana walaalayaal la soo hadla dumarka oo hadaa maqashiin qofku dhaa video ka duuba carar codan ka duubaya carar social media aan ku soo gelina ima soo gelinaysa social media hadday xitaa without adiga fasaxaaga adan ku fasaxinin ay social media ku soo gelisana ya caalamka ku ceebee waxa taa gabadhaas codkayga duubatay ani iyada sheeka private aan ka sheekaysanayni public ka dhigtay fasaxna uma siinin haddaad adigu sameyn karna gabdhaha kale ee social media ku jira u sheeg ayaga social media YouTube ka lagu ma aragtay ama Facebook ka lagu dacweynaya waana laga xiraa page-kooda ma fahanti khayra idin rajeyna walaalayaal Ilaahana bartid gareeyo Ilaahana badbaadiyo meel xuna marayna waqtiga hadda aan ku jirno wallahi meel xuna maruna meel aad u xuna marayna waxa marayna in dharka la iskala baxooyo waxa maruna in ma aragtay in har cad beel isku sheegayo waxa marayna heer marka sadaqo qof uu ku yiraahdo sadaqa u baahana dhibaato ay ka shikinaysa leedahay toloma sawirro feegu ii soo diray qofka run ma sheegaya heerkaas marayna walaalayaal hal is ilaaliyo oo dumar hadaan nahay dadkan maafiyada hal iska qabto naagahan jirka gadanaya iyo raggan waxa ogaatiin naag kasta
oo businesska ka shaqeynaysa inay bili aadan ilaahay abuurtay oo walaalaheeda oo Soomaaliya oo ciyaal yaryar oo masaakiina iyo family iyo wax kala qasayso naag baa guriga ku haysato og systemkaas nin kastoo 3,000 ama 5,000 bish ku keenayna ood ogtahay shalayto inuu 2,000 haysanin daaminis wuxuu ka shaqaysanayaa wax xaraan ah naaga cuntada u karnayso haysata marka goorma waxa ogaataa ninka asaga ama naagta ayada ilmo islaameed iyo qoys islaameed iyo ciyaal yaryar oo masaakiin ah ku talnaysa in kiliyahooda lala baxo oo kula talnaysa naakaale kiladaada gado masaakiin yar oo yahay meel ku gadanaysa waxa ogaataa ilaahay bari meelaan maanta ahayn buu kaaga keeni doonaa whatever goes around comes around whatever goes around comes around wax allaale waxa bil aadan walaalkaayo kala ah maskiin ah ku sameeysid bari asagoo urda ku imaana hadduusan adiga ku dhicin ciyaalkaaga ku dhacaya ciyaalkaaga hadduu ku dhicin familkaaga ku dhacaya walaashaa ka soo baxaya adeerkaa ka soo baxa abtigaa ka soo baxa hooyada ka soo baxa aabaa ka soo baxa wax allaale waxa kasbatid adduunka aakhirana oo ku sugaysaa adduunkana ilaahay uu kaaga maaragtay uu ka tusaaya uu kaaga soo saaraya ogaada taas midka inta ciyaal subaxii inta ciyaalkiis ka dhaqaaqo inuu u shaqo doonto ciyaal masaakiin ah oo habar ku soo dhimato rafaadsan oo silicsan ninka subaxii u labista inuu soo xado ama soo maxay ka iibiyo kilidooda oo dhaho kaal kilida iibsada beerkaaga iibso wad xagga iibso waxa ogaataa bari ina har cad ugu iimaanaysa ilmahaaga reerkaaga iyo igana maqan oo bala kala u timid aadan ka warhaynin because shalad waxaad ku samaysay dad islaam oo kaleeto war ilaahay inta ka baqino waxa waaye kama tudiinu tudaan wax allaala waxa bil aadan ku samaysid adigana ku iimaanayaan ogaada taas khayra isku ognahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh